waxaan xasuustaa maalin sanadkii hore aan u maleynay bishii November bishii diyaarad baan ka raacnay Djibouti waxaan u soconaa Addis Ababa Ethiopia Airlines maalmaha diyaaradda raaci doono muddo 5 bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda oo 150 qof ay ku qudbeeshay waad maqashay ma maleyn ya 100 dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baan sii wadanay ilaa Addis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way girirtay markaa kursigan aan u fadhiyaa kitaab quraan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin daadiisa ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashi ay fadhiya diyaaradii way girirtay markaa quraankan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed markaas aan ku yiri la ilaaha illa allah markaas uu yiri igu cali way girirtay hadana diyaaradii oo naxay aniga hadana ay qabsaday markaa baan la ilaaha illa allah markaas la ilaaha illa allah subhanallah dhageysta musa ajiib wallahi waa masa ajiiba markaasaan ayaan ku iri maxaad la cabsoon baan ku iri odayadaaba hamay cabsoon odayada marka aniga ila socday niman culimo reer Djibouti bay ahaayeen ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa way iska hurdaniyo marka kursiga dusheeda iska khoorinayaan markaasaan ku iri kuwa hamay cabsoonayaan adoo maxaa la cabsoon wuxuu iri kuwaasi way shaqaysteen anu ma shaqaysan buu iri kuwaasi waa muslimiin way shaqaysteen buu iri ma cabsoonayaan anu laakiin ma shaqaysan buu iri adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyaan ku jira maxaa markaa wuxuu iri anu islaam baan u baahanahay buu islaam inaan islaamaan doonayaa buu iri hadalkii hadana socday girirta diyaaradii markaas oo hadana lugtii qabsaday war isiida la ilaaha illa allah markaas uu iga dabeeyo la ilaaha illa allah diyaaradda markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'iideystay waxaan ka yiri waa inaad islaamtaa wuxuu iri islaamnimadu bariyahan oo dhan maskaxdayda ku dhex guuraysaa buu iri waanan arkay buu iri dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu iri rag badan oo ganacsato muslimiinana saaxiib aan lahayn buu iri marka isoo duceeyay buu culimadan ay ugu sheekay isoo duceeyaan anna ballan waan islaamaya buu iri hadalku halka noo maray marka ayaa la soo dhaadhaca waxaan xasuustay marka aayadaas وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم حالة هذاك مركي كنت مع دبا إلهي كوا قال هذا حاجة أصور ده حاجة إلهي فرعون مركي لقب تبع آيات لا تصبع نبي موسى كصور تجربة لي وقال يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل سقال آيات با إلهي فرعون وتصي آيات كي وحا كمدها الضوفان با لتصي ديق با لتصي أيح با لتصي إنجر با لقصة لدي آيات كستمركي لتصبى فرعون وحق موسى أي دقيه مركو كسو وايبا وعير هذا النبي موسى إنه وشيقا حدي لنقد قاد عقوبة ناس وحن كبال لنقادنا إلهينا الرومين موسى أن راعي ريب بني إسرائيل عذاب كان كدين فرعون موسى الله يمادان فرعون ساس وليه مرقاس النبي موسى إلهي ببريا بلا يدي با فرعون لقى قاد عقوبة دي مرة اللي مرقع عقوبة لقى قاد فرعون وحو ليه هي سحر بوها وحو نبو قبتي لا إله إلا الله ما أنت فرعون لقبت إلهي بكو أردايي إنا كان كورما ما أنت لأن قبت حقان وردنا زمن كان أوار بعد عضي إلهي نوما كان أمين هذا حقان لو غيلا دان درتا يا ده لو سو قرمدا هيدا سما فلكا هيدا كهرتقى مصيبوين كطبيعي هيدا علم باريستا ساداشة هودا إذا عدوا صوفر يسن فعالية جامعية والدبلوم 6 وعلى قولي إنك
master buu sitaa haye waxa uu ka faalloodaa hawada iyo cimilada ayuu wax ka barto wax ka sheegaa markaa buu odhanayaa isniinta soo socda roob baa da'aya alaabta urursada laa ilaaha ila allah qulu laa ilaaha ila allah hay-adda caafimaadka adduunka waxay ku odhan xanuun caalami adduunka yimidee sanka iyo gacmaha xidha man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu mima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed faaliye iyo fooxle buu nebigu yidhi labadaa ninka la fadhiista ee waxay sheegayaan wax ka rumaysta buu nebigu yidhi shareecaddii aniga igu soo degtay ninkaas waa ka gaaloobu rasuulku yidhi faaliyihii aad taqaanay mahayna faaliye casriyaa soo baxay iimaankaaga ilaalsho laa ilaaha ila allah ilaalsho hayb waxa iman doonee soo socda ilaahay maana cid kale ma taqaano ina allaha cindahu cilmu الsaaca wayunazilu اlghayth wayaclamu ma fi اlarxaam wma tadri nafsu maada taksibu gadan wma tadri nafsu biأyi ardin tamuut ina allaha caliimu khabiir saacadda qiyaamadu markay dhacayso ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano roobku markuu da'ayana alla mooye cid kale ma taqaano caloosha waxaa ku jira ma dakar baa mise waa untaa ma lab baa mise waa dhidig ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano adu halka aad baritoola waxaad kasbani doontidna ma ogid halkaad ku dhimanaysana ma taqaanin mid baa baryahan dhakhtarada waa aalaad casriya la helay moogtahay oo ay leeyihiin waana wax jira oqoon la gaadhay way dhici kartaa ma inkirayno laakiin waxna waa run bay noqotaa marmarna been bay noqotaa islaantii 7 biloodaa la saaraya ekooga iskaankaa la saaraya kombyutarka waxaa leeyahay islaanta gabadha wiil bay ku sidaa middaa lagu yidhi 7 bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa haddana 8 bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa 9 bilood markay madaxa la gashaan loo saaray wiil bay sidaa maalintay dhashaan laga yidhi gabadh bay ku dhashay u dagaalamayba wuxuu yidhi islaantaydu wiil bay sidee halkaas soo dhiga waad ii badisheynaya waar waxba laguma bedelin yaa miskiin aaladan bini aadam baa sameeyey 100% run ma sheegayso aaladan bini aadam baa sameeyey 100% run ma sheegayso horumar baa la gaadhay maaha masaa'ibtii bini aadamka masaa'ibtii u qarsoonayd baa bannaanka maanta loo soo dhigay caalamka isagoo qofkii oo nool ayuu nolosha ku dhintay qofku markii la yidhi dhiikar baad leedahay oo sokor baad leedahay oo macaan baad leedahay oo subag baad leedahay oo kansar baad leedahay uuba dhintayba isagoo nool buu qofku dhintayba berigii horena hee aalaadkan maanta wax iktishaafaya ee teknolojiga aan ku sheegayno ma jirayn qofku uu iska noolaan jiray uu iska bukoon jiray uu iska sakaraadi jiray uu iska dhimani jiray ma tahay mise ma walaa macaan buu ka baqaa walaa subag buu ka baqaa baa la sheegay qurbaha la geeyo wadannada Mareykanka marka lagu tuuro Soomaalida markaaba dhakhtar baa la geeyaa waa la check-gareeyaa check-up baa lagu sameeyaa markaasaa la yidhi oo dhakhtarkii uu yaabay cholesterol baad leedahay markaas war muxuu yidhi ii sheega markaasaa la subag baad leedahay subag badan markaasuu yidhi alxamdulilah marba haddaad dufan leehay buu yidhi war waddan waxaan haysanay dadku cala tabiica ku nool yihiin oo iska noolaanayaan oo hadday bukoodaana sadaqada bixinayaan oo ilaahay ay baryayaan oo quraanka isku daweynayaan nin dhan baad arkaysa masjidka sare kaco ka odhanaya war maalmahan waa yar xanuunsanaya faatixada hal ii maro ilaahay ducada muslimiinta buu aqbalaa horumar baa la gaadhay horumar lama gaadhine masaa'ibtii jirtay qarsooneyd baa bannaanka lagugu soo saaray maanta dadka iyakoo nool ayay qalbiga ruuxaaniyan iyo moraaliyan wayba dhisan yihiin dadku maanta fanarjac ila allah ilaahay baan u noqonaynaa koonkan ilaahay baa ka taliya waxa soo socda ilaahay maana cid kale ma ogo wixii ilaahay qadaray maana adduunka wax kale kama dhacayaan ilaahay ku xidhno yaan xadhiga ilaahay laga jarin sheekha yiri gaaladu barigoor waxay nagu soo qaadeen ghazwal fikr maskaxdeena naga soo duuleen hadda bariyahan waxa bilaamay ghazwal aqeedah in qofka aqeedadiisa iyo iimaankiisa laga dagaalamo aaminaadi ilaahay aad ku kalsoonayd ee quraanka aaminsanayd ee ilaahay tabaaraka wa tacaala nidaamkiisa aad ku xidhnayd ayaa la rabaa in laga gooyo dadna lagu xidhan nidaamka iyagu ay sameysteen marka waa inaad tiraahdaa yaa sheekh annagu muslimiin baan nahay isku aragti ma nahay isku aragti ma nihin insha Allah dhahada qolo insha Allah dhahada xaajadeena baahideena yaanu sheeganaynaa
الله ubadkeena ilaahay baan baraynaa ubadkeena quraankaan baraynaa haweenkeena asturka ayaan baraynaa dadka muslimiintu waa walaalo waxa walaalo ka dhigtay waa laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah wanaagaan umada ugu yeedhana wanaag waa maxay wixii shariicada islaamku ay ku fartay waa wax adiga maslaxad ku ah runta sheeg bay ku leedahay maslaxadu runta dadka oo dhan baa kugu jeclaan beentana dadka oo dhan baa kugu neceb ballanta buuxi bay shariicada islaamku ku leedahay ballantana ha buuxin bay ballantana ha jabin oo ballan baajiyaha noqon bay ku leedahay qofka ballanta buuxiya dadka oo dhan baa jecel qofka ballan baajiyahana dadka oo dhan baa neceb shariicada islaamku waxay ku leedahay amaano qof la noqo haddaad amaano xaafid noqoto dadka oo dhan baa ku jeclaani haddaad laakiin aad noqoto khaayin hooyada ayaa aabbaha wasa ka ilaalinaya wanaagay shariicada islaamku kugu yeedhayso waa waxa dadnimada kaaga dhigaya dadka kugu dhexdaraya qiyam akhlaaqda wanaagsan ayaa qof kaa dhigaysee qabiil iyo aqoontan maadiga iyo dhaqaalaha aad haysatid kaa dhigi maayo dad ugu diinta islaamka wanaagay kugu yeedhaysa ayaa dad ku noqonaysa fanatacallam diinteena baranaynaa diinteena ummadkeena baraynaa raggeena waaweyn diinta ilaahay baa ka shaqaynaynaa war maxaa ka shaqaynaa diinta ka shaqaynaynaa ayaa u daaray diinteenu ka shaqeeyo wallahi diintu shaqay u baahan tahay maanta shaqo habeen saddexaad baan hawdkaan u baxnay meel gaashaamo la yidhaha baan tagnay 4 cishaan ku maqnay duhur magaalaan marnay casr tuulaan marnay tuulaan maalin baad duhur la tukan dadka aan la hadlaynay salaada inta imanaysa iyo inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa salaada aan u soo kacayn 80% baa ku qiyaasay salaadii عمود الإسلام ودبدحاتي دين الإسلام كان ما أنت مجتمعنا كل أحد ضيعان وما دمر كافرد وما بهنا ما أنت صعد بأوبه أنت حيوبه أنت صعد سيدات كبد بعدين صادق يوم مدة كبد بعدين لا يدود ذلك الدعوة دوية ودل يردنا وضيدنا عامدنا علماءنا وأنا نقعمين تونس 5 سنة دين تدلك إنه هو ذكرنا يا ودي أردين